واريا لبا مر موودي ما أهن وحسهل إناد كدبيسو ريو هن إيه همي عاد إن بدن لهايد iyadoo oo waliba lagugula taliyay inaad iska dayso ama lagu sheegay inaysan ku suuroobin riyadaadu Haashim Maxamed waxa uu rumowday riyadiisii yaraanta ee ahayd inuu mar u noqdo baylood duuliye diyaaradeed mar labaadna waxa uu rumowday riyadiisii ahayd in mar ay waalidkiis ka mid noqdaan rakaabka diyaarad uu isagu duulinayo waa farxad saddexaad waalidkiis ayay u noqotay maalin cajiiba kadib markii ay raaceen diyaarad uu duulinayay wiilkooda Haashim sawirkan idiin muuqda waa Aabe Maxamed oo dhalay bayloodka oo lagu casumay qaybta laga hago diyaaradda uu wiilkiisu bayloodka ka yahay Haashim Maxamed Bulaale waa wiil da'yar oo noloshiisa ku qaatay kuna wax bartay dalka Denmark balse haatan ku nool dalka Spain Haashim waxa uu kadis isla yaab la u sameeyay hooyadiis Anisa iyadoo qorshahaas kadiska ay kala shaqeeyeen oo ay la abaabuleen aabihiis Maxamed Ismaaciil Bulaale iyo walaalkiis ka yar oo la yiraahdo Amiir Maxamed Bulaale oo ah aabaha dhalay duuliye Haashim oo ka qisoonaya qorshaha kadiska ee uu wiilkiisa ka caawiyay waxa uu yiri Aabe Maxamed Bulaale sidan aniga iyo wiilashayda waxaan abaabulnay qorshe kadis oo aan ugu talagalay xaaskayga Anisa waxay ahayd inaan qoys ahaan mar wada raacno diyaarad uu duulinayo wiilkeena Haashim wuxuuna qorshaheeni noqday mid qurux badan hooyada dhashay duuliyaha hooyo Anisa ayaa loogu sheekeeyay in la soo booqanayo Haashim oo degan dalka Spain xilli laga ambabaxay dalka Denmark waxa waqti badan ku baxay in la iswaafajiyo xilliga hooyadu ay fasax ka heli karto shaqada iyo waqtiga uu shaqada bayloodnimada ku jiro Haashim balse dadaal badan kadib waa ay suura gashay in la iswaafajiyo arrimahaas Aabe Maxamed Bulaale oo mar kale qisada wiilkiisa ka sheekeynaya waxa uu yiri sidan waxaan soo gaaray garoonkii ay diyaaraddu ka bixi lahayd iyadoo xaaskaygu aysan marnaba dareemin qorshaheena wiilkayga yar ee Amiir ayaa mar walba mashquulinayay ugu dambayna diyaaradda ayaan gudaha u galay annaga oo aan ahayn dadkii ugu dambeeyay waxaana mar qura isbedelay jawigii diyaaradda iyo rakaabkii saaraa oo dhan diyaaradda oo ay saarnaayeen rakaab gaaraya ku dhowaad 190 qof ayaa mar qura waxaa sameecadda laga maqlay codka Haashim oo ku hadlaya luqadda Daanishka iyo Ingiriiska isagoo markaas oranayay soo dhawaada maanta waxaan ku faraxsanahay inaan duuliyo diyaarad ay rakaabkeedu ka mid yihiin waalidkay waliba hooyaday oo ay tahay markii ugu horeysay tanina waa kadis aan ugu talagalay hooyaday Anisa intaas kadib mar qura diyaaraddii gudaheedii waxa isqabsaday sacab iyo marxabayn waalidiinta duuliye Haashim iyo isagaba loogu hambaliyeynayo arrintan aabaha dhalay duuliye Haashim oo cabiraya jawigii maalintaas ee diyaaradda iyo dareenkii xaaskiisa ee maalintaas waxa uu yiri hooyadiis Anisa ayaa marka ay maqashay codka wiilkeeda Haashim mar qura waxa indhaheeda soo buux dhaafiyay ilmo fara badan waxaana ka muuqatay qiiro iyo filanwaa waxa ay gashay jawi isugu jira naxdin oohin iyo farxad lama filaana iyo farxad xad dhaafa wiilkeeda ayaa u yimid oo ay ku booday laabtana ay gelisay si fiicanna ugu hambaliyay dadaalkiisa iyo sida uu uga dhabeeyay arrintii uu waligiis ku riyoon jiray intaa kadib duuliye Haashim waxa uu u soo baxay qaybta dambe ee rakaabka isagoo salaamaya waalidiintiisa waxaana intii uu diyaaradda ku dhex socday oo dhan sacbinayay rakaabkii diyaaradda iyagoo ku bogaadinayay sida uu riyadiisii yaraanta uga dhabeeyay iyo sida uu waalidkiis uga farxiyay iyo kadiska uu hooyadiisu sameeyay rakaabka diyaaraddaas la socday duuliye Haashim iyo qoyskiisa kaliya ayaa ka ahaa dad Afrika ka soo jeeda xilligii uu ahaa 9 jirka Haashim waxa uu ku fikirayay inuu noqdo duuliye diyaaradeed balse macallimadiisii xilligaas ee iskuulka ayaa u sheegtay inaysan suuragal ahayn iyadoo kula talisay inuu wax kale ku bedesho hamigiisa duuliyanimo Haashim waxa uu hadalka macallimadiisa kula laabtay guriga isagoo waalidkiis ogeysiiyay waxa uu kala soo kulmay macallimadiisa balse Haashim waalidkiisu waxay u sheegeen xilligaas inuu baran doono oo noqon karo wixii uu doono isla markaana ay ku garabsiin doonaan Aabe Maxamed Bulaale oo ka sheekeynaya sababtii macallimadu ay wiilkiisa Haashim ugu diiday barashada cilmiga duuliyanimada waxa uu yiri sidan
sababta macallimadu ugu sheegtay wiilkayga haashim inuusan duuliye noqon karin waxay ahayd 2 sababood. mar waa inuu ka dhashay qoys qaxooti ah oo dalkoodii ka soo cararay, iyo tan labaad oo ahayd barashada duuliyenimada ee dalka Denmark ay tahay waxbarashada kaliya ee lacag badan lagu barto. duuliye haashim lacag uu isagu urursaday iyo waalidkiis oo kaabay waxa uu suura gashay inuu dhammaysto waxbarashadiisii duuliyenimo. ugu dambayn haashim waxa uu ka dhabeeyay riyadiisii isaga oo noqday duuliye dhammaystiran. sanado uu waxbarashadaas ku qaatay kadib waxa uu shaqo ka helay shirkad diyaaradeed, isagoo hadda muddo ku shaqaynaya xirfadiisii yaraantiisii uu jeclaa ee duuliyenimada. aabe maxamed isaga uma ahayn markii ugu horeysay ee uu raaco diyaarad uu duulinayo wiilkiisa haashim xilligii uu ku guda jiray tababarka diyaaradda iyo safarro gaagaaban ayuu dhowr mar u raacay wiilkiisa, taasoo ka dhigaysa in duulimaad caalami ah ay u tahay markiisii u horeysay. duuliye haashim hadda waxa uu ka howlgalaa shirkad diyaaradeed oo Norway laga leeyahay, waxaana uga sii horeeyay shirkad kale oo uu shaqada duuliyenimada ka bilaabay.